kasta waa tegi doonaa waxaan doonaynaa soo dhawaada haddii aad arki jirteen dad idin dhibaya halkan dadka hadda ku sugan dad idin dhibaya ma ahan dad xaafadihiina idin dibaraya waxaan rabnaa warbixin inaan celin deegaanada waa qiimaynaynaa deegaan kasta waa tegaynaa magaalo kasta waa tegaynaa tuulo kasta waa tegaynaa waxaan la noqonaan rabnaa waxaan rabnaa inaan dhahno magaalo heblo ama tuulo heblo maasha allah ummad Soomaaliyeed oo xalaal ah oo nabad doonaysa ku sugan halkaan waxaan u imaanay howlgal marka horena halkaan waxa aad u cadaadin jiro u heesan jiray ummadda u dhibaateeyay nimankan oo magaciisi dawladdiidka ah noocay rabaaba ha ahaadaan aduu waxay ahaataba dawladdan waxay noo soo idmatay ama ururkaygan inta oo 14 Oktoobar in dhulkan isagii mas'uul ugu noqdo cadawgana bulshada uu ka qabto wallahi dabcan farqi aad ugu weyn ayaa u dhaxayso sababtoo ah markaan imaanaynay meel waxa imaanay eedo dhan annaga xitaa aan la yaabaneen dadkii aad mooday inay ka baqayaan xaaladda markaas isbedelka meesha ka yimid laakiin markii aan sameynay inaan bulshadii dhaxgalno aan u tagno aan u sheegno waxyaabaha jiro saxda ah wixii cadawga oo propaganda uu ka sameeyay ciidamada dawladda ama magaciisi dawladda guud ahaanba waxaan tusnay waxa cadawga ay sheegayeen iyo waxa muuqaal ahaan anaga ay naga arkeen bulshada waxa u soo baxday wax farqi aad u weyn waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed meesha aan joogno marka ay arkaan inay noqdaan dad nagu faraxsan noo soo dhawaada annagana aan u soo dhawaano on dareeno inaan la joogno walaalahayn waxaan nahay dad islaam ah waxaan nahay dad walaalo ah waxaan nahay dad Soomaaliyeed waxaan nahay dad hal dan ah waxaan nahay dad ujeedadoodu ay hal tahay noloshoodu ay hal tahay jinsiyadoodu ay hal tahay Soomaali ah